بسم الله kusoo dhawaada xarunta waxbarashada Irmaan Educational Center iyo casharadeen imtixaanahay halka waxaan ku qaadi doonaa cashir wada sheekaysi ee conversation wada sheekaysi waxa ku sheekaysanaya AB hadaba hadii aad ku cusub tahay page-ka Flowda casharka la gareysiina share garay sidoo kale ma ku dhiman tahay barashada luqadda Ingiriiska ma doonaysaa inaad ku barato luqadda Ingiriiska qaab sahlan hadaba hadii jawaabtaadu waa tahay Irmaan Educational Center wuxuu bixiyaa buugaag Ingiriis oo isfasiraya kana kooban 3 buug iyo muuqaaladooda hadii aad danaynaysid nagala soo xiriir WhatsApp numberka halkan kaga muuqdo furaha waa hal 5366 mahadsanid ayaa ku hormartay waxay leedahay how many people are there in your family how many people are there in your family imiso dad ama imisa ay ka kooban yihiin qoyskaagu imisa ay ka kooban yihiin qoyskaagu there are 5 people in my family my father, mother, brother, sister and me. There are 5 people in my family. Qoyskaygu waxay ka kooban yihiin 5. My father, aabahay, mother, hooyaday, brother, aboowahay, sister, abaayaday and me iyo aniga. And me maxaan dhahaynaa iyo aniga. Does your family live in a town or countryside? Does your family live in a town or countryside? maxaan leenahay qoyskaagu ma wuxuu ku nool yahay magaalo mise baadiyo maxaan leenahay does your family live in a town or countryside maxaan leenahay qoyskaagu ma wuxuu ku nool yahay tuulo mise baadiyaha ayuu ku nool yahay countryside waa baadiyaha we live in the countryside we live in the countryside waxaan ku noolnahay baadiyaha waxaan ku noolnahay baadiyaha ayaan ku noolnahay what does your father do what does your father do aabaha muxuu sameeyaa what does your father do aabaha muxuu sameeyaa my father is a doctor my father is a doctor aabahay waa dhakhtar my father is a doctor aabahay waa dhakhtar he works at the local hospital he works at the local hospital maxaa leenahay wuxuu ka shaqeeyaa isbitaal gudaha ayuu ka shaqeeyaa How old is your mother? How old is your mother? Hooyada imisa sano ayay jirtaa? Hooyada imisa sano ayay jirtaa? She is 14. She is 40. She is 40 years. Waxay jirtaa 40 sano. She is 40 years. Waxay jirtaa 40 sano. 1 year younger than my father. 1 year younger than my father. Waxaan leenahay she is 40 years old. Waxay jirtaa old in la raacay waa she is 40 years old waxay jirtaa 40 sano ayay jirtaa 1 year younger than my father 1 year younger than my father waxay hal sana ka yar tahay aabahay 1 year younger than my father maxaa leenahay waxay hal sana ka yar tahay aabahay what does your mother father lack what does your mother or father lacks s ayaa raacsan sorry s ayaa halkaas ku daraysaa what does your mother or father lacks hooyada ama aabaha maxay jecel yihiin hooyada maxay jeceshaa ama aabaha muxuu jecel yahay my father lacks playing football and my mother lacks cooking my father lacks playing football maxaa leenahay aabahay wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro kubadda cagta and my mother lacks cooking hooyadana waxay jeceshahay karinta ama wax karinta ay jeceshahay do your parents let you stay out late do your parents let you stay out late maxaa leenahay waalidiintaadu ma ku ogolaadaan inaad banaanka ku soo daahdo waalidiintaadu ma ku ogolaadaan lad waa ogolaasho stay inaad joogto out late macnaha inaad banaanka ku soo daahdo ma ku ogolaadaan of course not dabcan maya of course not maxaa leenahay dabcan maya they always ask me to get home before 10 p.m. each night they always ask me to get home before 10 p.m. each night maxaan leenahay mar waliba waxay weydiiyaan ama igu dhahaan inaan imaado guriga 4 saac ka hor 4 saac habeenimo ka hor habeen waliba inaan macnaha imaado guriga 4 saac habeenimo ka hor do you stay with your parents do you stay with your parents ma waxaa la joogtaa waalidiintaada do you stay with your parents ma waxaa la joogtaa waalidiintaada right now no right now maxaa leenahay no hadda maya but I used to laakiin waan la joogi jiray but I used to maxaan leeyahay ama aan leenahay laakiin waan la joogi jiray
Does your family usually have dinner together? Does your family usually have dinner together? Inta badan qoyskaagu ma isla casheeyaan? Maxaan leenahay does your family usually have dinner together? Maxaan leenahay inta badan qoyskaagu ma isla casheeyaan? Yes, we do. Haa, waan isla casheynaa. My mother always prepares delicious meals for us. Yes, we do. Maxaan leenahay haa, waan isla casheynaa. My mom, hooyaday always waqti waliba mar waliba prepares waxay noo diyaarisaa delicious meals for us. Maxaan leenahay cunto macaan ayay mar waliba noo diyaarisaa. Haddaba cashirkan wada sheekaysiga halkaas ayuu ku egyahay. haddii cashirka heshay la garay sidoo kale sii share garay page-ka haddii aad ku cusubta flow soo dheh. mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada Irmaan Educational Center, xarunta waxbarashada ee Irmaan.